الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Raja Sports News qodobada maanta oo sabtiya taariikhdan ay ku aasaysan tahay 27 bisha labaad ee February sanada 2021 aad ku daawan doontaan waxa kamid ah kooxda Manchester United oo diirada saaranaysa daafac qalbada dhexe ka duulaan taga oo ka ciyaaro Realka dalka Spain ayaa qodobada barnaamijka daawan doontaan ku jiri doona Sabarahari Kina xagaagan markii uu dhamaado waxa rajaynayaan Spurs ka dhaqaaqo kadib markii Tottenham ay shaaciyeen qiimaha ciyaaryahanka lagu heli karo sabab ku aadan dhaqaale xumo soo wajahday naadiga ku ciyaarta Tottenham Hotspur Stadium qodobada sidoo kale barnaamijka waxa ku jiri doona weeryahanka Arsenal ee Alexander Lacazette oo xiise ka helaya naadiga horyaalka dalka Faransiiska ee Ligue 1 ciyaartay ee Monaco xilli ciyaaryahankaasi oo san ku jirin qorshaha tababara Mikel Arteta wararka ciyaaraha sidoo kale qodobada barnaamijka waxa ku jiri doona Chelsea oo ku biirtay raacdada loogu jiro ciyaaryahanka Bundesliga xagaagan waxdaraha ka dhigaya ee reer Norway Erling Haaland ayaa qodobada barnaamijka sidoo kale kamid noqonaya Manchester United waxa ay ka fikirayaan iska iibiyaan golahayaha reer Spain ee David De Gea sabab ku aadan mishaarka sare oo ciyaaryahanka oo ka qaato Old Trafford iyo xagaagan oo qaladaad badan ku sameeyay ninka reer Spain ee David De Gea qodobada barnaamijka sidoo kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxa ku jiri doona Liverpool oo diirada saaranaysa ciyaaryahan ka tirsan Real Madrid xagaaga soo aadan la soo dhaqaaqan ayaa qodobada barnaamijka ku jiri doona wararka ciyaaraha sidoo kale waxa ku jiri doona ciyaaryahanka reer Spain aan reer Germany ee ka tirsan Sky Blue Ilkay Gundogan waxa uu ka sheekiyay kusoo biiritaankiisii Manchester City inay jirtay koox reer England oo dhowr xaga la xiriirinayay intoosan u soo dhaqaaqin geedii Etihad ee Manchester City wararka ciyaaraha sidoo kale qodobada waxa kamid noqonaya Manchester United oo ku biirtay Real Madrid raacdada loogu jiro ciyaaryahanka Bayern Munich baxsadka ka ee reer Austria ee David Alaba ayaa qodobada barnaamijka ku jiri doona daawan doontaan saaxiibayaal kulamada maanta jira English Premier League kulanka ugu soo horeeya oo Etihad ku dhaxmari doona Manchester City iyo West Ham ayaa sidoo kale qodobada barnaamijka daawan doontaan ku jiri doona horyaalka dalka Spain ee Premier Division kulanka ugu adag waa kan Barcelona u safrayaan magaalo xeebeedka Spain ee Seville halka ay kula soo ciyaarayaan naadiga Seville anigu Xasan Cabdullaahi iyo barnaamijka idin soo saar halkaan idin kala socodsiinaya waana mar kale barnaamijkii Raja Sports News markale kulanti wacan wanaagsan daawadayaal qodobadii aad daawateen ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabayaa naadiga Manchester United ayaa ka fikirayay inay u dhaqaaqaan daafaca Villarreal ee liirado Paulo Torres Manchester United ayaa 24 jirkaas diirada u saaran yahay xilli xagaagan ee daafaca Manchester United habacsanaa weyn ee ka muuqato ninka daafaca ka ciyaaray ee liirado iriga Bale ninka reer Sweden ee Lindelof iyo Harry Maguire ayaa dhamaantooda xali waayay daafaca Manchester United Solskjaer waxa uu ka fikirayay in xagaagan markii uu idlaado u dhaqaaqo daafaca 24 jirka ee Villarreal ee Paulo Torres inkastoo United ka aysan shaacin qiimaha ciyaaryahankaasi kula soo dhaqaaqayaan haddana waxaa la rumaysan yahay in Solskjaer oo ka fikirayay in xagaaga soo aadan uu xoojiyo daafaca Manchester United si ay ugu loolamaan horyaalka English Premier League oo xilli ciyaareedkaana Manchester United booska labaad horyaalka oo gabagaba ee kaga jiraan islaamura Manchester United ayaan ku guda jirnay Milan ciyaaryahanka qadka dhexe kubad sameynta kaga ciyaaray ee reer Turki ee liiraado Hakan Çalhanoğlu kubad sameeyaha AZ Milan ee Hakan Çalhanoğlu ayaa la xiriirinaya oo 27 sano jira in Manchester United ay soo qaataan xagaagan markii uu idlaado Paul Pogba ayaa suurtagal laga dhigayaa inuu dhaqaaqi karo Manchester United ana ay ka fikirayaan bedelkiisa ay ka dhigtaan ninka reer Turki ee xilli ciyaareedkana qaab ciyaareedka wacan ku jira ee naadiga San Siro ku ciyaartay ee Rossoneri ee reer Turki ee liirado Hakan Çalhanoğlu
Harry Kane waxaa lagu soo waramayaa in Tottenham ay macquul tahay in xilli ciyaareedkan uu noqdo kii ugu dambeeyay oo ka ciyaaray geeda Tottenham Hotspur Stadium kadib markii Tottenham ay ku habsatay dhaqaale xumo soo wajahday tan iyo markii Faris Corona oo dunida ka dilaacay dhaqaalaha kooxaha reer kubadda cagta ayaa hoos u dhacay waxaana Tottenham usii dheeranay geeda Tottenham Hotspur Stadium qarashaad badan ay geliyeen waxaana haatan lagu waramayaa in Tottenham ay ciyaaryahanka dul dhigeen adduun lacageed gaaray 150 milyan oo lacagta euro oo ciyaaryahankaasi naadiga iyo miiska saaray ee Spurs ay ku wareejinayaan Manchester United iyo Manchester City oo ka wada dhisana magaalada Manchester ayaa dhamaantooda raadeerka u saaran yahay ciyaaryahanka reer England ee 27 sano jirka dhinaca kaleetana wariyaanka Arsenal Alexander Lacazette ayaa ka helay dalaba naadiga reer Faransa ee Ligue 1 ciyaartay AS Monaco ciyaaryahanka ayaa kulamada Arsenal aan safka joogtada ku soo bilaaban oona ciyaaryahanka ka dhacay qorshaha tababaraha Arsenal ee reer Spain ee Mikel Arteta ciyaaryahanka 30 sano jirka ayana macquul tahay inuu dhaqaaqo iyadoo sidoo kale la xiriirinayo naadiga Wanda Metropolitano ku ciyaartay Atletico Mikel Arteta isla muraad Gunners ayaan ku guda jirnay waxa uu ka fikirayaa ciyaaryahanka 25 sano jirka ee dambeedka midiga daafaca ka ciyaara ka oo doonay inuu ka tagay geed Emirates seasonkan markuu idlaado ayuu doonayaa tababar Mikel Arteta inuu ku sii xafido geeda Fly Emirates toddobaadka la soo dhaafay markii oo Hector Bellerin shaaco ka qaaday inuu doonayo inuu tijaabiyo tartan cusub waxaana ciyaaryahanka si weyn loola xiriirinaa naadiga Paris Saint-Germain Football London waxay ku waramaysaa in Mikel Arteta uu doonayo ninka la yiraahdo Hector Bellerin oo 25 sano jira in Arsenal uu ku sii celiyo seasonka soo aadan Liverpool waxay diiradda saaranayaan ciyaaryahanka reer Brazil ee 20 sano jirka ee Rodrigo oo Real Madrid ka tirsan ciyaaryahanka reer Spain ayaan ku faraxsanayn joogitaanka caasimada dalka Spain ee Madrid Rodrigo waxaana Liverpool ay doonayaan ciyaaryahankaasi la soo dhaqaaqaan reer Spain aan reer Brazil ka oo Real Madrid ka tirsan Rodrigo waxaana Liverpool ay cabsi weyn ka qabaan leedumiyaan Mohamed Salah ama Sadio Mane midkooda Salah ayaa shaaca ka qaadin oo san albaabada ka xiran doonin Real Madrid iyo Barcelona oo si joogto ah loola xiriirinayo ciyaaryahanka faraacinada Masar ee Mohamed Salah Chelsea waxa ay ku biirtay raacdada loogu jiray Haaland tababaraha dhawaangalka ee reer Germany ee Thomas Tuchel ayaa raadinayeen xagaaga soo aadan wariyahan dheeraad oo Chelsea ku soo daro idoo qaab ciyaareedka liita ee ninka reer Germany ee weerarka ka ciyaarana oo doonaya tababaraha inuu isbedel ku sameeyo imaatinka Thomas Tuchel ayaa isbedel ku keenay Chelsea oo kulamadii ugu dambeeyay gool ee gaareen Thomas Werner ayaana wili raadinaya inuu la qabsado Chelsea iyo qaab ciyaareedka horyaalka dalka England ee English Premier League Haaland ayaa ka mid ah xidigaha sida weyn Bundesliga xagaagana wacdaraha ka dhigaya wararka ciyaaraha hadii aan si wadana kooxda Manchester United waxa ay ku bireen raacdada loogu jiro David Alaba ayaa qandaraaskiisa Bayern Munich waxa uu dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedkan waxa uu sheegay ciyaaryahanka inuu ka tagay Bavarianka iyo horyaalka dalka Germany ee Bundesliga Real Madrid iyo Chelsea ayaana kooxaha ugu cad idoo Manchester United xilli dambe ee ku biireen dagaalka loogu jiro soo qaadashada ciyaaryahanka 27 sano jirka ee la yiraahdo David Alaba markaana waxaan eegaynaa horyaalka dalka Spain ee Primera Division halka oo kulanku waa toddobaadkan uu yahay kan u dhaxeeya kooxaha Sevilla iyo Barcelona ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa ay barbaro la galeen Osga oo ay kula ciyaarayeen Camp Nou tababaraha Ronald Koeman ee reer Netherland ayaa doonayay inuu ku soo laabto wadada guulaha si uu ugu loolamo horyaalka dalka Spain ee La Liga waxaana Barcelona 8 dhibcood ee ka dambeeyaan naadiga horyaalka hogaaminaya ee Atletico Madrid iyagoo 5 dhibcoodna ka dambeeyay naadiga booska labaad ku jira ee sida weyn waxa filtamaan ee Real Madrid Barcelona ayaa marti u noqon doonta kooxda Sevilla kulan adag oo ka tirsan horyaalka dalka Spain ee La Liga Roman Sancho ayuuna ka dhacaya oo Sevilla ku ciyaaraan labada kooxood ayaa kulankaas soo galaya iyaga oo kaliya 2 dhibcood kala dambeeya horyaalka dalka Spain ee La Liga goor kulankooda maanta oo Sabtida
kooxda Barcelona ayaa kulanka soo galaya iyaga oo guula ka gaaray 4 ka mid ah 5 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka La Liga ee Sevilla ee la ciyaareen. dhanka kalena Sevilla ayaa guula gaadhay 5 kulan ee ugu dambeeyay oo ee La Liga waxa ayna kulanka soo galayaan iyaga oo doonaya in ay guul ka gaaraan naadiga Catalonia ee Barcelona. geeska Afrika waxaa la daawanayaa maqribadii 12:00 ayay ciyaarta soo galaysaa oo garoonka Roman Sancho oo Sevilla ay ku ciyaaraan ciyaarta ka dhacaysa. Rikoorada labada dhinac isku leeyihiin hadii aynu eegnana kadib markii ay barbaro gool iyo gool galeen kulankii qaybta hore ee xilli ciyaareedkan. naadiga la yiraahdo Sevilla ayaa isha ku haya leeyahay in ay ka fogaadaan guul darro ka soo gaarta Barcelona labada kulan ee horyaalka oo ay kala kulanto Barcelona markii ugu horeysay tan ilaa 2002-2003 markaas oo ay kulan badiyeen mid kalena ay barbaro la galeen naadiga Catalonia ee Barcelona hadii inta aan kaga baxnana horyaalka dalka Spain kulanka ugu adag horyaalka dalka Spain aan iraahday England ee Premier League waxaa jira kulan adag ka u dhaxeeyo Manchester City iyo West Ham ayaa booska afraad doonayay inay xafitaan halka Sky Blue ay doonayaan inay dheereystaan hogaanka horyaalka dalka England ee Premier League. Manchester City ayaa martigelin doonta kooxda West Ham oo leeliyad tababara David Moyes kuwa oo xagaagan wacdara ka dhigaya. kulan ka tirsan kulamadii toddobaadkii 26aad ee horyaalka dalka England ee Premier League Etihad ayuuna ka dhacay magaalada Manchester City ayaa kulanka soo galaya iyaga oo doonayay in ay tilaabo hore u qaadaan si dhibcaha horyaalka ay ku hogaaminayaan u dheereeyaan. dhanka kalena West Ham ayaa doonaysa inay ilaashadaan booska afraad oo Chelsea ay ku soo raadjoogtay iyo Liverpool kuwa oo ka dambeeya dhibca aan badnayn naadiga Hammers lagu naanayay West Ham. kulanka ayaa la daawanayaa 9:00 galabnimo geeska Afrika garoonka Etihad ayuuna ka dhacaya. guud ahaan inta ayaan jecelahay saaxiibayaal ku soo gabagabeeyo barnaamijkii Raja Sports News anigoo Xasan Cabdilaahi ayaa barnaamijka idin soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay dib inta u kulmi doono amaanaal.